kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka warbaahinta xogta dalka idin haysta kuwada ugu doorka roon madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo hadal hanjabaada u jeediyay madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ee Soomaaliya loolankii ugu adkaa oo siyaasadeed oo dhexmaraya damul jadiid iyo nabad iyo dhalal Sunna oo marka la ka guuleysatay xaaf iyo madaxweyne Farmaajo oo qodobo xasaasi ah hordhigay madaxweyne xaaf Beesha Xaaji Saleeman oo ka hortimid go'aankii dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ahaa doorasho ay ka dhacdo Dhuusamareeb iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo jawaab kulul ka bixisay go'aankii Kenya una yeertay safiirka dalkaas wararka dibaddana waxa uu dooron madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka soo horjeestay heshiiskii qarniga daawadayaal intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta xogta dalka idin haysta kuwada ugu doorkroon hase yeeshee haddii aad ku cusubtaa bartan YouTube-ka fadlan subscribe dheh oo guji gambalaalka like share noo saaxiibadaada si wararkii ugu dambeeyay gudaha iyo dibadda markaan soo galina bartan YouTube-ka ay u helaan markana ku soo dhawaada daawadayaal warkii oo faahfaahsan aanu ku bilowno madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa hadal kulul u jeediyay madaxda ugu sareysa ee dalka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo xalay ka hadlay munaasabada kooda Luulyo ee 59 guuradii ka soo wareegatay markii gobolada Koonfur ay qaateen xornimada iyo midowgii waqooyi iyo Koonfur ayaa khudbad uga hadlay midnimada dalka iyo xaaladda dalka uu hadda marayo Siciid Dani ayaa sheegay inay rajeynayaan in 60 sano u buuxsami doonto sanadka soo socda in midnimadii dalka inuu soo laabto iyo dawladda dadkeeda oo israacsan yihiin waxa uu sheegay inay muhiim tahay in deegaanadaas ay ka dhacaan doorashooyin xor iyo xalaal ah waxa uu ka digay arrimo uu sheegay in madaxda ugu sareysa ee dalka ay hadda gacanta kula jiraan taas oo qusaysa maamul goboleedyada sida hadalku u dhigay Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu baaqay inay ka deyso faragelin ay ku sameyso doorashooyinka Jubbaland iyo Galmudug maamulada Galmudug iyo Jubbaland oo doorashooyin ku soo fooleeyeen in ay Puntland wax ka bartaan xoog wax lagu kala qaado in ay si wanaagsan tartan xalaal iyo xor ah oo u dhaxmaro waxaan rajaynayaa cidii soo baxdana bulshadaas iyo adduunka iyo dadku inay la shaqeeyaan waxaan aad u rajaynayaa dowladda federaalka inay aad uga fiirsato in magacii xumaa ee meel ka raacay in dibdam u raacin oo ay meel ka istaagto dhexdhexaada kuwii istaageera oo toosay inuu Ilaahay naga dhigo waxaan aad u rajoweynahay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad ku filan dalkooda inay maamushaan danahooda ay qabsadaan wixii tagayna ay dib u milacsadaan oo aysan dib u go'an madaxweynaha Puntland hadalkiisa ayaa u muuqday mid si dadban uga hadlayay doorashadii madaxweynenimo ee ka dhaqabsoontay magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed taas oo ku soo baxay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen oo la aaminsan yahay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay taageereysay dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore lagu eedeeyay inay faragelin ku hayso maamulada Jubbaland iyo Galmudug oo ay dhawaan doorashooyin ka dhacayaan dowladda Soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay go'aankii Kenya waxa ayna u yeertay safiirka dalkaas dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si degdeg ah u yeertay safiirka Kenya ee Muqdisho Lucas Tombo Soomaaliya ayaa danjiro Tombo ku wareejisay qoraal cabasho ah oo ay kaga dacwoonayso Soomaaliya warka lagu daabacay bogga wasaaradda arrimaha dibadda Kenya 27 bishan xogayaha xog joogtada wasaaradda arrimaha dibadda Kenya Majeria oo kulan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Xaaji ayaa qoraal barta Twitter-ka wasaaradda arrimaha dibadda lagu sheegay in Kenya iyo Somaliland ka wada shaqeynayaan iskaashiga labada dal hadalkaas ayaa loo arkay inuu yahay culays siyaasadeed oo ay dowladda Kenya saarayso Soomaaliya qoraalka cabashada ayaa lagu sheegay in hadalkaas uu tixgelinayaan inay halis ku tahay madax banaanida midnimada dhuleed iyo sharafka Soomaaliya isla markaana ay Soomaaliya u taagan tahay daris wanaag ixtiraam labada dhinac iyo in iskaashi dhow lala yeelato dariskeeda ayna sidaas si la mid ah ka rajeynayso dowladda Kenya ayaa dhaleeceyn badan kala kulantay baraha bulshada kadib markii ay adeegsatay weedha labada dal waxaana ku xigtay warqadda maanta ay soo saartay dowladda Soomaaliya cabashadan ayaa ku soo adeeysay xilli uu weli mugdi ku jiro xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya kadib markii Kenya ka xumaatay dacwadii ay Soomaaliya u gudbisay ICJ ee ku aadeed
muranka ay Kenya gelisay badda Soomaaliya. Xog ayaa sheegaysa farmaajo in uu qodobo xasaasi hordhigay xaaf. madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo shalay soo gaaray Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay madaxweyne farmaajo. xaaf oo ay garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka oo badnaa kuwa daacad u ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si toos ah loogu gudbiyay xarunta madaxtooyada federaalka Soomaaliya halkaas oo kulanka qorsheysan kula qaatay farmaajo. kulanka oo ahaa mid albaabada u xiran yahay oo ay adkeed in xog badan laga helo ayay warbaahintu u suurta gashay inay hesho xog ku saabsan waxyaabihii ay lamada mas'uul ka wada hadleen. kulankan oo dhicitaankiisa uu markii horeba ka soo shaqeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa uu jeedkiisu ahaa in sidii uu madaxweyne xaaf ula shaqeyn lahaa dowladda federaalka ee Soomaaliya doorasho la filayay inay ka dhacdo galmudug. xaaf ayaa madaxweyne farmaajo waxa uu hordhigay qodobo dhowr ah oo ay dowladda Soomaaliya ka rabto inuu sameeyo waxaana suurta gashay in ay helno qaar ka tirsan qodobada ay labada dhinac ka wada hadleen. waxa ugu horeeyay inuu san isku soo sharixi karin doorashada galmudug. labo inuu xaaf kala shaqeeyo dowladda dhicitaanka doorashada. saddex ballanqaadkii xaaf loo sameeyay oo ay ka mid tahay xilal iyo lacag la sheegay inay u dhaxayso 3 milyan ilaa 2 milyan iyo ballanqaadyo kale oo siyaasadeed sida wararka lagu helayo. dhinaca kalena kooxda Al-Sunna ayaa galaangal siyaasadeed oo xoogan markaan sameynaysa iyada oo la sheegayo in xaaf markan lagaga adkaaday galaangalka Al-Sunna ay sameysay. kooxda Al-Sunna ayaa aqbashay dalabkii Khayre ee ku aadanaa ciidamadooda in lagu daro ciidanka xoogga dalka qaybta 12aad toosna loo hoosgeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. kooxda Al-Sunna ayaa aqbashay dalabkii Khayre ee ahaa in ciidamadooda la qarameeyo laguna daro ciidamada Soomaaliya. Al-Sunna oo arrintan hore u diiday kadib safarkeedii koowaad ee wasaar Khayre uu ku tagay Dhuusamareeb ayaa ugu dambeyn aqbashay codsigii ra'iisul wasaaraha kadib wada hadallo dheeraad oo uu kula yeeshay magaaladaas oo dib ugu laabtay. sida xogta lagu helayo Al-Sunna ayaa arrintan ku bedelatay arrimo ay ka mid yihiin in dowladda ay si joogto ah u bixiso mushaarka ciidamadooda taas oo muddo culays ku haysay kooxdan. waxaa sidoo kale kooxdan la xaqiijiyay in doorashada galmudug ay ka dhici doonto Dhuusamareeb taas oo ra'iisul wasaaraha uu ku dhawaaqay intii uu ku sugnaa magaalada Cadaado. xubno ku dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in sidoo kale ay jiraan xilal dhowr ah oo ka mid ah kuwa federaalka oo kooxdan la ballan qaaday inkastoo aan la ogeyn waxay noqon doonaan. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo Maxamed Shaakir Cali Xasan oo madaxa xukuumadda galmudug ah uu xalay sheegay inay diyaar u yihiin in hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa galmudug ay si wadajir ah uga howlgalaan magaalada Dhuusamareeb. dhinaca kale odayaasha dhaqanka ee beesha Xaaji Saleebaan ayaa ka hor yimid heshiiska Al-Sunna iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. kulan magaalada Cadaado ay maanta ku yeesheen odayaashii waxgaradka magaaladaas ayaa waxay uga soo horjeesteen hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ahaa in gogosha shirka dib u heshiisiinta galmudug lagu dhigayo magaalada Dhuusamareeb. madax dhaqameedka ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan hadalkii Khayre xalay jeediyay ee ku aadanaa in shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada galmudug ay labadaba ka dhici doonaan magaalada Dhuusamareeb caasimadda galmudug. odayaasha ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ku eedeeyay in uu ballan furay kadib markii sida ay sheegeen uu dhammaan awoodihii maamulka uu u raray magaalada Dhuusamareeb isla markaana uu ka dhabeyn waayay hadalkiisa ahaa in galmudug loo dhan yahay uu wax ka dhisayo. odayaasha ayaa magaalada Dhuusamareeb ku tilmaamay meel niman isbaar u taalo aysan yeeli doonin inay ka qayb galaan doorasho ka dhacda Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee bartamaha Soomaaliya. hadalkan ayaa imaanaya saacado kadib markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu Dhuusamareeb ka sheegay inay ka furmi doonto gogol dib u heshiisiin ah oo lagu heshiisiinayo beelaha galmudug ee ka dhici doonto doorashada maamulka galmudug. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay markii Muqdisho uu ka soo tagay ay dad badan kula taliyeen inuusan tagin galmudug isla markaana wax xal ah ka gaarin hase yeeshee taasi ay haatan muuqato sidoo hadalku u dhigay. ugu dambeyntiina loolan siyaasadeed kii ugu cuslaa ayaa ka dhex qarxay kooxaha Damul Jadiid iyo Nabad iyo Nolol oo ku hardamaya siyaasadda Soomaaliya. labada garab ee ugu awoodda badan siyaasadda Soomaaliya waa Nabad iyo Nolol oo hadda haya talada dalka iyo Damul Jadiid oo hadda sameysatay magaca xisbiga cusub oo lagu magacaabo xisbiga nabadda iyo horumarka oo hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynihii hore ee Soomaaliya. labadan garab ayaa waxa u dhaxeeyo loolan adag oo dhanka doorashooyinka maamul goboleedka oo ah aasaaska koowaad ee loolanka doorashada guud ee dalka ka dhici doonta marka uu dhamaado waqtiga xiliyeedka dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo oo hadda u harsanta hal sano iyo bar. loolanka u dhaxeeya labadan garab ayaa hadda ah mid barbaro ah marka la fiiriyo tartankii ay ku galeen doorashooyinka ka kala dhacay Koonfur Galbeed oo ay Nabad iyo Nolol ku guuleysatay iyo Puntland oo la rumaysan yahay inay ku guuleysatay Damul Jadiid oo hadda waji cusub oo siyaasadda Soomaaliya uu ku soo gali doono maadaama
dani uu damjiid ka tirsanaa loolanka ugu adag ayaa waxa uu labada dhinac ku dhex maraya doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacdo deegaanada galmudug halkaas oo maalmihii dambe booqasho ku joogo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaalkeeda ugu badan ku bixinayso sidii uu galmudug ugu guuleysan lahaa shakhsi ay iyada wadato si ay iyada u soo xusho xildhibaanada federaalka ka soo galay maamulkaas maadaama xubno mucaaradka dowladda intooda badan ay baarlamaanka ka soo galaan maamulkaas halka xisbigu hogaamiye Xasan Sheekh ay culays weyn dareemayaan maadaama nabad in laga yaabo inay halkaas kaga guuleysato waxayna wadaan dadaalkooda ugu dambeeya oo ay ku doonayaan inaysan galmudug gacanta u gelin nabad nolol taas oo sababi karta inaysan saameyn ku yeelan doorashada dalka dhici doonto xasan cali khayre ayaa socdaal dheer ku soo maray deegaanada galmudug sida Dhuusamareeb Gurceel Cabudwaaq Xeraale iyo Cadaado wuxuuna ujeedka ugu weyn yahay sidii ay dowladda Soomaaliya ugu hirgelin lahayd qorshaha ay la damacsan tahay galmudug oo ah inay gacanta ku dhigto maamul ahaan iyo soo xulista xildhibaanada federaalka marka la gaaro waqtiga doorashada xildhibaanada ka tirsan kooxda damjiid ayaa dhankooda wada la xogan waxayna Cadaado kala kulmayaan odayaal dhaqameedyada iyaga oo kala hadlay inaan gacanta loo gelin galmudug dowladda federaalka isla markaana doorashada noqoto mid aan mugdi ku jirin galmudug ayaa noqon doonta meesha ugu badan oo uu ka dhici doono loolanka ugu dhaxeeya damjiid nabad nolol maadaama xildhibaanada saameynta leh ay halkaas ka soo jeedaan marka la fiiriyo doorashada ka dhici doonta Jubbaland waqtigan la joogo wax saameyn ah kuma laha nabad nolol waxaana xiriir ahaan Axmed Madoobe kaga dhow damjiid waxaana macquul ah inuu labadan dhinac dhex maro wada shaqeyn ku aadan in dowladda Soomaaliya loo diido inay Jubbaland ka soo saarto xildhibaano daacad ah haddii aysan wax isbedelin lama rajaynayo in dowladda gacanta ku dhigto Jubbaland maadaama Axmed Madoobe diiday inay wax lagu ah dowladda ku yeelato doorashada isaga oo ka shaqeynayo sidii uu soo xiri lahaa xildhibaano isaga dib u soo doorto marka la fiiriyo qaabka ay hadda wax u socdaan iyo guddiga doorashada oo daacad u ah Axmed Madoobe doorashooyinka galmudug iyo Jubbaland ayaa go'aamin doona cidda yeelan doonta awoodda doorashada soo socota maadaama ay hadda dowladda gacanta ku hayso kaliya Koonfur Galbeed halka Hirshabeellena aysan weli meel u dhicin iyadoo ay isku dhaceen Waare nabad nolol lagana yaabo inay bilowdaan mooshin meesha looga saarayo Waare markaas oo Hirshabeellena ay ka dhici doonto haddan culus halka warkaas daawadayaal idinkaga imaanayo waa warbaahinta xogta dalka markana wararka dibadda madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay inay tahay wax aan xitaa laga hadli karin in Turkiga uu taageero qorshaha dhaqaalaha ee Mareykanka uu ugu talagalay Falastiin qorshaha aqalka cad oo shaac laga qaaday toddobaadkii tagay ayaa ku baaqaya maalgelinta $50 milyan oo muddo 10 sano ah lagu sameynayo dhulalka Falastiiniyiinta iyo dalalka Carabta ee dariska la ah qorshaha Mareykanka ayaa la sheegay in hadafkiisu yahay inuu 1 milyan oo shaqooyin ah uu abuuro Falastiiniyiinta qorshahan ayaa qayb ka ah qorshaha maamulka Trump uu ugu talagalay Falastiin iyo Israa'iil kaasi oo loogu magac daray heshiiskii qarniga warkii oo xilligan daawada la kaga imaanayay warbaahinta xogta dalka waa naga intaa